Salman Khan waa actor Hindi ah, magaciisa runta waa Cabdulrashiid Saalim, waxaana loogu naanaysaa Saluu. Salman Khan waxa uu dhashay 27 Diseembar 1965, waxa uuna ku dhashay Madhya Pradesh, balse asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Afghanistan. Salman Khan aabihiisa waxaa lagu magacaabaa Salim Khan. Salman awowgiisa aabe waxa uu ka yimid asal ahaan dalka Afghanistan. Salman Khan hooyadiisa waa Hindu, sidaa darteed waxa uu yiraahdaa Salman Khan marka uu ka hadlayo filimadiisa in uu yahay haaf Hindi iyo haaf Muslim ah. Salman Khan waxaa la dhashay 2 wiil iyo 2 gabdhood. Labada wiil waa aktaro, waxaa lagu kala magacaabaa Arbaaz Khan iyo Suhail Khan. Labada gabdhoodna waxaa la yiraahdaa Alvira iyo Arbita. Salman waxa uu wax ka bartay iskuulka lagu magacaabo St. Stanley's High School oo ku yaala Mumbai. Salman Khan filimkiisii ugu horeeyay waxaa lagu magacaabaa Bibi Hota Aisi, waxa uu sameeyay sanadii 1988. 1989 waxa uu sameeyay filimkiisii Main Pyar Kiya. Salman Khan filimkani waxa uu ku helay abaalmarinta Filmfare Award for the Best Male Debut, taasoo ah atooraha ugu wanaagsan ee filimkiisii ugu horeeyay ee shaqo wacan ka qabta. Sidoo kale filimkani waxa uu noqday mid ka mid ah filimaanta ugu dakhliga badan Bollywoodka. 2004 Salman Khan waxaa loo doortay mid ka mid ah 7 nin ee ugu quruxda badan caalamka iyo Hindiya. Xagga muuqaalka, jirka iyo quruxda, waa actor deeqsi ah, waxa uu inta badan caawiyaa dadka faqiirka ah. Salman Khan waxaa in badan lagu soo oogay dacwad ku saabsan qaladaad uu ku kacay sanadii 2002. Salman Khan waa la xiray kadib markii uu si taxadar la'aan ah ugu dhuftay baabuur uu watay bakery ama meel macmacaanka lagu cuno oo ku taala magaalada Mumbai. Waxaa ku dhintay shilkaasi qof jiifay marshabiyeedii u dhawaa bakeryga. 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen, waxaana lagu xukumay in uu gacan ku dhiigla yahay, balse muddo kadib waxaa lagu dhawaaqay in uusan dambi lahayn. 17 Febraayo 2006 Salman Khan mar uu ugaarsanayay waxa uu si kam ah u dilay deero, waxaana lagu xukumay 1 sano oo xarig ah. Inkastoo Salman Khan ku xukunaa xabsi 1 sano ah, haddana waxa uu ka qaatay racfaan, balse waxa uu xabsiga ku jiray muddo 6 cisho ah. Salman Khan waa doob, weligiis ma uusan guursan. Waxa uu saaxiib la ahaa atriishooyin badan. Markii ugu dambeysay waxa uu xiriir la lahaa aktarada caanka ah ee Katrina Kaif. Mar ay wareysi siisay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Indiya sanadii 2011, waxa ay sheegtay in xiriir fiican la lahayd Salman Khan muddo sanado ah, balse uu dhammaaday xiriirkooda sanadkii 2010. Salman Khan waxa uu sameeyay NGO ama hay'ad gargaar lagu magacaabo Beyond Human, ka oo iibinaya funaanadaha iyo badeecooyinka yaryar oo loogu talagalay dadka danyarta ah. Bishii Janaayo 2012 Salman Khan waxa uu ugu deeqay 400 oo maxbuus ah in laga sii daayo xabsiga maadaama aysan bixin karin lacagta ganaaxa oo lagu xukumay. Waxa uuna ka bixiyay lacag gaaraysa ku dhawaad $88,000. Salman Khan sanadahan dambe wuxuu awood ku haystaa shirkadda Bollywoodka, balse weligiis ma uusan ku guuleysan atooraha ugu wanaagsan ee sanadka. Abaalmarinada ay ku guuleysto waxaa ka mid ah Filmfare Best Male Debut Award, taasoo la siiyay atooraha ku cusub Bollywoodka oo shaqo wacan ka qabta filimkiisii ugu horeeyay, taasoo uu ku helay filimkiisii Main Pyar Kiya, iyo abaalmarintii kale Filmfare Best Supporting Actor, taasoo uu ka helay filimkii Kuch Kuch Hota Hai. Filimkaasi waxaa hogaaminayay Shah Rukh Khan, isagana wuxuu ka ahaa caawiye. Salman Khan filimaantiisa waxaa ka mid ah Karan Arjun, Judwa, Diwana Mastana, Jab Yaar Kisi Hota Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Hum Dil Se Juke Sanam, Hello Brother. Intaas ayaan kusoo koobayaa taariikhda jilaaga caanka ee Salman Khan iyo waxyaabihii laga qoray.